السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال مeel kastoo joogtaan soo dhawaada waxaa idin yaala salli mug weyn oo aad ku nasataan hadduu allaha awood la idmo waxaan isla eegi doonaa baryahani baraha bulshada waxaa socda in dadku ay isugu dhigayaan labo inay isugu dhigayaan gabar iyo gabar wiil iyo gabar iyo yani hadduu la yidhaahdo wiil iyo wiilba ujeedada laga leeyahay iyo muhiimadda laga leeyahay iyo weliba waxa loola jeeda iyo inay run yihiin inay been yihiin waxaasi oo dhan baan halkan kula faguraynaaye intaan u guda gelin muuqaalka like saar channelka subscribe saar sidoo kale waxaad la wadaagtaa asxaabtaada sidaad adiga daawanaya qaali igu tahay oo kale qaali kuugu ah ama aad ugu tahay agtooda baryahani waxaa socday baraha bulshada in laba isugu dhageeyay arrinka isaga ah waxaa ka dambeeya ama waxa uu ku salaysan yahay waxay tahay in YouTube-kii uu hoos u dhacay in loo guuray shirkadda TikTok in dadku ay hilmaameen YouTube inuu jiro iyo inuusan jirin in dadku ay ku foogan yihiin TikTok iyo game la ciyaaro iyo qabiil u dhaco inay yani halkaas ay ku foogan yihiin saas darteed si dadkii loo soo jeediyo ama dadkii loo ogeysiiyo inuu YouTube jiro wali laga guurin in marka barnaamijyo alifaada loo keeno in dadkii la isugu maajigareeyo ama la isugu aadiyo labo in la isugu aadiyo waxa kale oo meesha aan ka marnayn baa waxay tahay cid walba oo dareenta hoos u dhac dhanka viewska ah waxay bilowdaa wadadii ay ku tilaabo qaadi lahayd YouTube-keeda ama hadba page-ka markaasi ay social media ku leedahay sidoo kor ugu soo kici lahaa iyaga oo markaasina u adeegsada si qaab daran oo aad u foolxun sida qabiilka diintoo lacaaya hadduu alla ku idmayo in nasabad iyo reer lacaaya iyo waxyaaba noocaasa iyaga oo xooga saara sidaas taasi oo keliya noqotay midda qaaliga ah ee maanta lagu tartamaya ee qofku ka qabiil sheeg badan yahay ama uu ka yani muxuu ahaa qajajac iyo muran badan yahay uu yahay qofka ugu viewska badan laguna jecel yahay maanta baraha bulshada waa ina ogaataan marka dadka daawadayaasha ah ee mujtamaca ah ee iyagu caama dhagaweynta ah in waxba ogeyn waxaa lagu khaldayaa qabiil waxaa lagu khaldayaa waxyaaba aan munaasab iyo dhaqan ahayn baa lagu khaldayaa laakiin ninkani isaga already waxa uu sameynaya inay khalad yihiin waa ogyahay waayo ma jirta maanta adduunka meel ay ka jirto diinta nabi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee meel aysan gaarin adduunka ma jirto ciddii ilaahay uu la doonay baa rumaysay oo raacday oo diinta qaadatay oo siday tahay ilaahay ugu anfacay iyo ciddii iska dhigatirta iyada iska dhigatirta laakiin meelaysan gaarin male waxaa kaloo intaa dheer qofkii muslim ahaa oo diinta ku jiray maanta meel walba waxaa ilaahay mahadiyay inuu caalim ka noqon karo waayo adduunka social media maanta noqdo bal adu eeg kitaabkaad rabta magaciisaad qori sheekhaad rabtaadna raacin ood cabkiisa yani carabkiisa aad ku ogtahay fasiix inuu yahay saas darteed halkaad ka dhegaysan fanni maanta aad u baahan tahay oo social media aan ku jirin male laakiin cid daawanaysa ma laha habeen hore waxaan daawanayay maxaadaro waan fiirinayay waxaa lasoo dhigay 5 bilood ka hore waxaad daawatay wax 2,000 iyo wax sidaas dhan oo qof waxaan isbarbar dhigay oo fiiriyay niman way is haystaan la lahaa oo maanta focuskeena uu yahay in aan halkan uga hadalno oo bariyahan is haystay oo social media isku haystay qabiil iyo awood iyo views iyo YouTube iyo caaniman isku faanay baan fiiriyay 1 hour hal saac bitaale waxaad daawatay 200 300 oo kun oo qof baa daawatay iyo wax ka badan baa daawatay 1 hour sabab faham marka ina ogaato dadkan caama dhaga weyn baa raacdaa yani Soomaalidu waxay ku fiican tahay mashquul in la hoteeyo boonboonin wax mashquulin bay ku fiican tahay maanta ninka diinta u gafa oo nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee qofka u gafa maanta oo aad tiraahdo war ma ahee ka joog waxaa ku dakhri oo kugu soo boodiyay ku gaal oo la dhashay oo hadduu doono diintaba aan weji ka lahaynba oo diintuu raba raaco baa ku dili balowsi u gal oo qabiilkiisa qabiil buu ku difaacayaa asagaa saxan buu ku leeyahay marka waxaa marka focuskeena iyo muhiimadeena yaana ka gudbina taasi waa iska baraarujin guud iyo dadku inay ogaadaan waxa lagu khaldahay inay yihiin wax maala yacni aan waxba ka jirin oo dadku aysan hilmaamin diinta iyo kitaabkii Alle oo dadku aysan hilmaamin sunnadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaysan hilmaamin taas weeye marka muhiimadda aan dadka aan yani maxaa ku dhiirigelinayna ee gawaabada guuda waa taas markaan ka soo laabano baryahani waxaa socday dhanka dumarka iyo dagaal ka socday
laakiin horta si alla markuu dumarka dagaalamaya oo dumarku ay iyagu dhexdooda ay howlo isku waxaynayaan ragga ma aha kuwa hoos ugu soo noqda dhaqamiyan iyo dabeecadiyan iyo diiniyanba meesha ay haweenku ku buuqayaan isku haystaan ka maslaxeeyo ka odayeeyo wax sahlan ka dhigo kala dir oo kala mashquuli waa haween waa maryooli waa gamboolay waa iska masaakiina kala dir waxay isku haystaan u xagli laakiin ha dhex gelin oo usha intaad qaadato intay caytamaysa hala caytamayna ha dhex gelin waxaa marka ula jeedaa dumarku iyagu gaar bay isku haysteen qabiil ha isku haystaan dhaqan xumo kale ha isku haystaan iyagu ha iscaayaan waxba iskuma hambeeyaan waxay rabaan bay isdhahayaan waatan laho dumarku saaxiibnimo ma galaan midba miday saaxiibta uga dhowdahay haddana markay waxyar isdhex maraanba wixii o dhan bay banaanka keeneen ceeb ay hayso laakiin raggu taa waa ka duwan yahay waxaa marka ula jeedaa dumarku meel bay iska haysteen iyagoo dhan bay iska haystaan laakiin ragga laftirkiisa way ku dhex maran yihiin oo sidaas ku dhex social media ayaad ku arkaysaa oo tiktok ayaad ku arkaysaa nin rag ah oo gabar intuu life la soo koray waxay sheegto shanteed sheegahay iyada waxay sheegto oo 20 jibaarkeed sheegaya isagana bal adu eeg marka ina ogaad adduun dhaqankii laga guuray oo bilgihii laga guuray oo sharaf dhimatay oo xishood baaba'ay oo raggii iyo dumarkii ay kala yani muxuu ahaayay isku meel maanta ay sharafta ka taagan yihiin iyo aqliga in la marahay waa inaad ogaato ku baraarugto daawade waa inaad ku baraarugto waxaa kale oo jira oo iyadana inaan ka hadla muhiim ay tahay waxaa socday oo xalayta ilaa iyo 24 saac inoo dambeysay baan idhahnay in CK iyo weliba Dirisle Cabdi oo ah ragga maanta Soomaalida ugu caansan dhanka caanimo markii la yiraahdo uguna followers ka badan dhanay noqotaba waayo 17kii 16kii ilaa 15kii oo Soomaalidu ay social media aysan aqoonba raggaasa ku jiray waxaa saddexaad u kula jiray Daahir Cali soo ugu horreeyay waxa soo dhan laakiin raggaasi iyagu reactionno iyo waxyaabo dadka horan ay soo arag bay la imaadeen oo dhex keeneen mujtamaca sidaas darteed bay ku mutaysteen inay helaan dad malaayiin ku dhow inay helaan bay ku mutaysteen waa dad sanawaad ku soo jiray iyaga marka waa cilada Soomaalida ay qabtay qofkan mar alaali markuu xoogaa helo oo isku yar aado wuxuu bilaabayaa inuu jaqalka ku riixo mid kasta oo isku dayayo inuu heerka asaga uu gaaray saas darteed kii u horreeyayba horumarinta ama horumarka ama farsamada kii u horreeyayba iyagii mar alaali markay yani muxuu ahaay iyagu markay soo koreen oo dadku ay arkeen waxay bilaabeen inay iyagu isku istaagaan inay dagaalamaan inay siday u wadeen waxay keeneen social media inay la soo fariistaan chatting iyo WhatsApp hadda ka hor dhex maray bal eeg ma dumarba wuxuu ma dumarba si wax ka yii eeg social media la imaanayaan fiiri wuxuu ii soo qoray maxaad naga tusaysaa ku soo qoray raganimada aad leedahay kaliya waa inaad uga aamusto qofkaasi hadduu ka khaldan yahay ama hadduu ka saxan yahayba waa inaad uga aamusto raganimada laakiin inaad garab boodo oo si haweenka aad tiraahdo bal waxaan eeg ma aha waa laga fiican marka waxaa marka xalay soo baxday ninka ilaa halkaasaa loo fujaasay oo leh CK baa u soo adeegsaday dadoo waa la dilay waxaa halka u fadhidaa inaan beeneenno oo been ay tahay hal isa ka jirin hal kama jiraan hal intaa le kama jiraan waa been laakiin waxaa la khaldayaa caama dhagaweynta hadda aan ka hadlayn meel walba loo adeegsado haddii qabiil laga hadlayo haddii dhaqan xumo kale laga hadlayo meel walba loo adeegsan qof walba loof ba iska siinayaan waa runtii wuu saxan yahay way raacayaan kii waa laga soo gudoomay ku kale aadayaan waa runtii wuu saxan yahay adigu saxan yahay maad ku hay maadan go'aan gaaraynin oo waxaan baranaynba haye waa lagu gaaday baraangiyadan waxay yihiin ba aragtay beentu waxay taa aragtay waad fahantay soo kama ilbaxdid waa inaad fahanta marka waxaan marka ula jeednaa mujtamaca beenta ha laga ayiro social media adoo qaymo leh oo mujtamaca dhexdiisa magac kale baad joogi kartaa lacagna ka samayn kartaa kuna dhex jiri kartaa wabillahi tawfiiq muuqaalka noo sheer garay aragtidaana qaybta commentiga nagula wadaag mahadsanid